gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo maanta ka qayb qaadanayay fadhigii maxkamadda gobolka Muqdisho ay ku dhageysanaysay dacwadda loo haysto laba sarkaal oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa wareysi khaas oo maanta uu siiyay telefishinka Hoon Cable TV waxa uu ku eedeeyay xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiga talada iyo kulmiye in dalka cadaalad daro ay ka wadaan isagoo sheegay in tallaabooyinka imika xukuumaddu ay qaadayso ay muuqato mid dalka lagu khalkhalgelinayo واحد ناين مدبلة واحد الدنبيو ذي سبعين نمشرين واحد حرين أخي ما سياسة ما أنت أنا محكمة دوان تجي هل مرخاتي ومن دقيستي مرخاتي قاسي مثل الويدين ما كان يوحد بين سبعين ولوجي هاي ما كان ما قرنا يبوجي وهالك أيجا بحيون كل يبقى إلا الدون يو وحن شرين ندوش على جساره وحن وجدينا حكومة إن السياسة يو حركة مسؤولين تحزابته هي صحافة طبعا وحن وجو باقينا عدالة مجر صورك أنا كم ضح بنا هذا فريقين تحكومة مركب ملك الدعوة يكتاي عزاب ترتميسها oo door waqti doorasho lagu jiro in mas'uuliyiinteedii la xiro muddo inta leeg la hayo iyadoo wax dambiyo loo haynin annaga booliisku waa booliiskayagii saraakiishu waa saraakiishayagii askartu waa askartayadii waxaanu doonaynaa inaan si wanaagsan ula shaqeyno marka waxaanu ka doonaynaa inay dhexdhexaad noo noqdaan annaga iyo xukuumadda iyo kulmiye gudoomiyaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay eedeemo ka soo yeeray gudoomiyaha Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirka warfaafinta oo labaduba eedeemo u soo jeediyay dadka qaarkood waxba lama oran karo oo wali jawaabi karo waxaan maqlay bariba nin maxbuus ah oo bala soo xirayo dabeetana waxa lagu xiray meel aan mas'uul lahayn marka laba maxbuus bay haayeen dabeedna waxay yiraahdeen war mas'uul lama la meesho maxaynu sameynaa dabeedna mid baa yiri war sacabkayga ku kaadi oo markuu buuxsamo aan dibadda ku soo sayro laakiin joojidii markuu sacabku buuxsamo dabeedna markuu buuxsamo waa ob yiro mas'uul ob ma leh marka waxa la horta cadaan ob ma leh marka hadda iska hadlo hadaa meel uu ku joogsado iyo wuxuu ixtiraamayo iyo wuxuu dhowrayo midna jirin وأنك كسعته إيشوتشي كروي بكرجي هي ولا تاعي أنا ودورش عن ربنا أنا نيو حقوق كلو رجنا ربنا أنا سومان لين هجاتشنا ربنا مركز دورش هو سود يرجعون عيدا يا فلقادة يا حسيلون الدرخة أنت بهيس كده أيام ترتن هو سود يرجعون وسنة وحلاي ما لو حكم بغري سوى وضاني ما وحيني بصوتان أنا قبل كده ويتو ضد كانوا اللي حبلود دورشة ضب هالله قدقوا وحنا هيد أرهن واقعية وشرتي أرهن أنا صورة قال سنة وهين دورشة لقبته لكن سوى حلا موسى أنا واحد سوى إنه يحتر على ضدك هذا مشان دي بتصوته gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharax xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro sidoo kale waxa uu sheegay in socdaalkii uu ku tagay gobolka Saaxil ay muujinayso in guud ahaan gobolada iyo deegaanada Soomaaliland ay diyaar u yihiin isbedel weyn kulmiye waqtigiisii uu dhameystay waxa la arkay cadaaladiisa waxa la arkay sidoo uu maamulay waxa isla shacbigu wuxuu gaaray waqtigii uu badiilkiisa keeni lahaa marka xasilay saaxil waxa ka muuqatay shacbigu inaanay kulmiye wixii jacaylka u hayeen uu ka maydhmay gobolada kale lamid yihiin ma haysta dhinaca kale gudoomiyaha kumeel gaalka xisbiga mucaaradka wadani xildhibaan Cabdiqaadir Jirde ayaa isna waxa uu ugu baaqay xukuumadda Soomaaliland inay ilaaliyaan dimuqraadiyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan ma geeyo in qori afka laga geliyo ma geeyo in loo diido inuu booqdo dadka xiriiran waayo waa madaxweynihii mustaqbalka saddexda musharaxaba waxay ka dhigan yihiin saddex madaxweyne oo kayda oo mustaqbalka ah marka tii ay soo mareen een uga dhiidinay een uga hiilinay
inay maanta iyagii ku kacaan waa ayaan daro